asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. aakhiru zamaanku wuxuu noqon doonaa mid fitnooyin aad u fara badan iyo arrimo la yaab leh oo caqligu uusan malaysan karin ay ka buuxaan. wuxuuna aakhiru zamaanku noqon doonaa mid u dhow maalinka qiyaamaha, si dadku ay u aqoonsadaan zamankaas calaamadihiisa oo ayna u diyaar garoobaan in ay towbad keenaan oo ay u laabtaan alle subxaanahu wa tacaalaa xaggiisa. calaamadahaas dhici doona dhammaadka adduunyada waxaa ka mid noqon doona in dadku ay ku mashquuli doonaan fitnooyin iyo colaad dhexdooda ah, iyaga oo ka mashquuli doona dhulka camiriddiisa iyo raadinta irsaaqdooda iyo arrimaha kale ee muhiimka u ah noloshooda. kadibna waxaa ka baabi'i doona xoolahooda iyo ganacsiyadooda, waxaana ka dayacmi doona shaqooyinkooda. can abi hurayrata radiyallaahu canhu qaal, waxaa abi hurayra radiyallaahu canhu laga wariyey inuu yidhi: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. maalin maalmaha ka mid ah ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tukaday salaada subax. thumma aqbala cala annaasi faqaal, kadibna intuu dadka u soo jeestay ayuu wuxuu yidhi: bayna rajulun yasuuqu baqaratan id rakibahaa fadarabahaa. nin ayaa xilli uu la waday intuu dusha ka koray kadibna ul ku dhuftay. faqaalat innaa lam nukhlaq lihaada. markaas bay lo'dii intay u soo jeysatay la hadashay oo waxay ku tidhi: innaga haddii aynu lo'nahay la inooma abuurin in inta dusha la inaga fuulo ulna la inagu garaaco. innamaa khuliqnaa lilxarth. waxaa la inoo abuuray in aan dhul ka falno oo aan wax beerno. faqaala annaas, kadibna dadkii ayaa iyagoo aad ula yaaban hadliddeeda waxay yidhaahdeen: subxaana allah, baqaratun takallam. subxaana allah, malo ayaa hadashay. faqaal, kadibna nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa asxaabtiisa ku yidhi: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. aniga iyo abi bakar iyo cumar ba dhacdadaas waa aynu rumaynay ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. xitaa haddii ay ka mid tahay waxyaabaha la yaabka leh ee aanan caadiga ahayn ee ka baxsan nidaamka kowniga ah, maxaa yeelay allihii nidaamkan kowniga ah sameeyey waa uu awoodaa wax ka baxsanna in uu sameeyo. kadibna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: wa baynamaa rajulun fii ghanami. xilli uu nin ku sugnaa arigiisa dhexdiisa, id cada di'bu fadahaba minhaa bishaat. ayuu yey intuu soo weeraray wuxuu kala tagay mid ka mid ah riyihiisa. fatalaba xataa ka'annahu istanqadahaa minh. kadibna ninkii ariga iska lahaa ayaa wuxuu raadiyey ridii uu yeygu ka qaatay. markii uu yeyga u soo dhowaaday oo ay u suura gashay inuu ka badbaadiyo, faqaala lahu di'b. yeygii ayaa la hadlay oo wuxuu ninkii ariga lahaa ku yidhi: haadaa istanqadtahaa minnii faman lahaa yowma asabuc. nin yahow waad iga badbaadisay, balse yaa iga badbaadin doona maalinka la yidhaahdo yowmu sabuc. yowma laa raaciya lahaa hayrii. maalinkaasoo noqon doona maalin aniga mooyee cid kale oo raacaysa aysan jiri doonin. maalinkaasoo dhulku uu bani aadamka ka haawan doono oo dugaag mooyee cid kale aysan ku hari doonin. maalinkaasoo waddamadu ay burburi doonaan oo addoommaduna ay halaagsami doonaan. maalinkaasoo riyaha aysan u soo hari doonin qowsaar ka ilaaliya yeyda iyo dugaagta. faqaala annaas, markaas bay dadkii iyagoo aad u yaaban waxay yidhaahdeen: subxaana allah, di'bun yatakallam. subxaana allah, mayay ayaa hadlaya. qaala faإnnii uuminu bihaada ana wa abuu bakrin wa cumar wamaa humaa tham.
markaas buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isla sidii hore ku yidhi, aniga iyo abibakar iyo cumarba dhacdadaas waa aynu rumaynay. maalinka loo yaqaano yowmusubac oo micnihiisa loola jeedo maalinka dugaagta waa maalin imaan doona aakhiru zamaanka, xilligaasoo fitnooyinku ay aad u fara badan yihiin oo dhibaatooyin aad u waaweyna ay dhacayaan. waxay dadku iyaga oo amakaagsan ka wada mashquuli doonaan danahooda adduunyada, waxaana xoolaha laga tagi doonaa iyaga oo dayacan oo cid raacaysa aysan jirin. markaas bay yeyda iyo dugaagtu xoolaha intay soo weeraraan ku xadgudbi doonaan. taasina waxay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha. dadku waxay dhexgeli doonaan fitnooyin aad u fara badan iyo arrimo ka mashquulin doona in ay ilaalshadaan masaaliixdooda iyo arrimaha noloshooda. waxaa ku soo duuli doona dad iyo ummado dugaag ah. markaas bay waxay ugaarsan doonaan waddamada iyo addoommadaba khayraadkooda. imaamu nawowi raximahullah markii uu sharxayay wuxuu yidhi, ereygan yowmusubac oo xadiiska ku soo arooray macnihiisa waxaa loola jeedaa yaa iska lahaan doona oo ilaalshan doona ama dhaqaalaysan doona markii fitnooyinku ay dhacaan. markaasoo dadku xoolaha iyaga oo dayacan isaga tagi doonaan iyaga oo aysan jirin cid ilaalinaysa. markaas bay dugaagtu u noqon doonaan qowsaarka keliya ee ay leeyihiin. sidoo kale waxaa kitaabka saxiixulmuslimka raximahullah ku soo aroortay in macnaha yowmusabuc loola jeedo maalin dugaagtu ay idinka eryan doonto oo aniga mooye cid kale oo ilaalinaysa aysan jiri doonin. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.